bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan falanqayn toos ah oo aynu ku eegayno fanaanada Ugbaad Aragsan oo soo rogaal celisay. fanaanada Ugbaad Aragsan ayaa asbuucyo ka hor waxa ay soo qaaday hees ay ku sheegtay inay iskaga tirtirayso rafaadkii ay isla soo mareen iyo noloshii macaaneed ee ay isla soo dareemeen fanaanka dhigeeda ahaa ee Qamar Suugaani. fanaanka Qamar Suugaani ayaa bilo ka hor waxa uu ku aqal galay dankaasi Ingiriiska. fanaanada Ugbaad Aragsan oo markaasi soo rogaal celisay ayaa waxa ay soo qaaday hees ay ku sheegtay inay xanta iyo xusuusihii xaasidiinta ay uga sheekeeyeen ay iskaga tirtirayso heestaasi oo ay la dhaceen dad aad u fara badan. ayaa waxa ay fanaanadu ku sheegtay inay ugu talagashay inay iskaga tirtirto noloshii macaaneed ee ay la soo qaybsatay saaxiibkeed qaaliga ee Qamar Suugaani. fanaanadan masraxiyada kule caalamkoo dhan ayaa marqura waxa ay soo qaaday hees ay ku sheegtay xantii xumaantii xaasidka iyo dhammaan didiiladii ay iskaga tirtirayso ay la soo qaadatay fanaanka weyn Qamar Suugaani. tanina waxay u muuqataa in fanaanada Ugbaad Aragsan ay weli rajo ka qabto in mar uu soo laabto xaajigeedii hore ee Qamar Suugaani oo ay isla soo qaateen farxad iyo murugaba. fanaanada Ugbaad Aragsan oo waayadii dambe aan ka soo muuqan masraxiyada ayaa hal mar waxa ay ka soo muuqatay hees ay ku sheegtay inay u qaaday inay iskaga tirtirayso oo dhan walbaba ay iskaga rogayso diiftii iyo jacaylkii wanaagsanaa ay isla soo qaateen Qamar Suugaani. fanaanadan oo hal mar masraxiyada gashay waxa ay jacayl waali ay isla soo jileen fanaanka Qamar Suugaani oo ugu soo jacaylkaasoo ku soo biyo shubtay in ugu dambeyntii ay faraha iska qaadaan. tanina waxay ku muujinaysaa in fanaanada Ugbaad Aragsan ay weli rajo ka qabto inay mar xaajigeedii hore ay midoobaan, taasina ay tahay inay mar walba xusuusaha gaarka ay la soo qaadatay Qamar Suugaani ay muujiso.